Somali people are one of the nicest in the world. I'm sure we all have Somali friends all around the world. But today we're going to dive deep into their culture, their food, and their lifestyle. They have their own unique language, but a lot of them speak Arabic. tani waa markii labaad ee aan imanayo magaalada Muqdisho iyadoo ay ahayd markii aan imi ugu horeysay 2021kii markanna waa markaygii labaad ma sha Allah bal insha Allah taala waxaan la wadaagayaa bilicda magaalada Muqdisho iyo sida ay tahay silsilada Muqdisho waxa laga yaqaanaa katiinka iga furbuulo ma asan yaabaas dumarka katiinka xidhan jiray hadii Muqdisho ma sha Allah saaxiib sadarkiisa airport kan hadda ka soo baxnay dhinacaya magaaladii caasimadii Muqdisho ayaan bal sii dhaxmaraya magaalada Muqdisho markii ugu horeysay waxaan imid 2021kii markaas aan wax yar joogay 7 maalmood baan joogay waana si fiican wax badan oo arag insha Allah bal waxaan isku diyaar maanta inaan si fiican caasimadda ugu soo dalxiiso idinkana idin soo tuso hotelka magaciisa waa Al Jazeera hotel Al Jazeera Allah maxaan maqlay hotelka Al Jazeera hotel Jazeera ma sha Allah magaalada dhismaysa Muqdisho saaxiibayaal buildingkan Egas Salema Equatorial Egas Reer Xamar Egas waxaan ku yiri Muqdisho uu garanaya ninkii garanaya loo sheegi maayo halkan waa Premier Bank ma sha Allah saarkiisa ma dhinaca Premier Bank baa ku yaala dhinacan xayaad waa nimi sanadkii hore ma sha Allah Premier Bank ku qabo dhinaca arkiisa waa Premier Bank card aad u wanaagsan Premier Bank kaarkiisa in badan baa isticmaalay in badan baa wadamo badan ku maray aad baad ma haysatiin Premier Bank xayaad ma sha Allah subaakidkana aad weeye sanadkii hore markaan joogay waa ka adeegtayba ma sha Allah guriyana arkaysan Egas naasab loo baaldhaa naasab loo Hargeysa un baan aqaanay xamarna ma ku taalaa Enzo Home saarkiisan ba shirkaddan insha Allah Hargeysa dhawaan iman doontaa Enzo Home ma sha Allah haddaad u baahan tahay interior design khatara u baahan tahay guriyihii ugu dambeeyay waxaan ku sharaxaadihii ugu dambeeyay guryaha Enzo Home ugu soo hagaag insha Allah dhawaan saaxiibayaal hadii Allah ka dhigo Hargeysa iman doontaa Enzo Home بيدن عاقيدي مقعد صاحب عبدي يورن حقيت انت هاي انا بولالا بولالا ما شاء الله marka waxa weeyaan xaafad xagee ku taala xaafadda bari ما شاء الله waa jimc saaka maxaad qabanaysaa saaka intaas joogna caadi waad ka shaqeynaysaa ما شاء الله ilaahay ku barakeeyo saaxiib barasho wanaagsan اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم ارسل عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم اللهم عليك بهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم waxaan ku soo tukaday masjidka Cali Jimcaale oo ah masjid aad u qurux badan halkaas oo dhalinyar badan joogtay ma sha Allah aad buu qurux badan yahay masjidku dad badan baa ku soo tukada salaada jimcaha Allah naga wada aqbalo acmaasha saalihan soo gudanay hadda hore ayaan u sii soconaya waan baxayaa sidoo kale waxaan si kaliya isku aragnay saaxiibka Yusuf oo masjidka ku tukanayay ما شاء الله اسمياشن ورسمياشا هذا آد كيات كوكر حي مقالة حياة مول وسوبرماركت آد يادوين
malaayiin dad oo reer muqdisho ayaa subax walba kusoo kalaa si adeegooda maalinle uga qaataan. sidoo kale wadda halbowlaha oo aad iyo aad u jaan badan ayaa hormarta xayaat mool. maasha allah roob ayaa noo daayay maanta magaalada muqdisho way qabowdahay maasha allah. sidoo kale waxaa aad iyo aad ugu badan gaadiidka tigta oo ah mid ay inta badan dadku aad u isticmaalaan magaalada muqdisho. sidoo kale waxaan booday Ensa Home oo ah shirkad samaysa renovationka iyo qurxinta guryaha magaalada muqdisho. shirkaddan waa shirkad aad la yaabayso qurxinta guryaha, kuraasta, fadhiyada, sariiraha iyo sidoo kale equipmentka aad u baahan tahay haddii aad rabto inaad maanta guri ka dhisato magaalada muqdisho. halkani waa magaalada muqdisho oo maalinba maalinta kasii dambaysa bilicdeedu kor u qaadmayso maasha allah. saarkaysaanba horteeda waxaa ka muuqda dabaqyo dhaadheer, quruxda magaalada dabiiciga ah maasha allah, badii oo dhinaca ka xigta magaalada maasha allah tabaaraka allah. allaha barakeeyo muqdisho. dhinacan waxa weeyaan iga dambeeya waxa weeye magaalada muqdisho oo si aad iyo aad wanaagsan u koraysa, si baaxad weyn kor ugu kacaysa maasha allah. dhismayaashaas biyaanada ugu yar waxaa laga sheegay inay tahay 12 ilaa 24 biyaano saaxiib. sidoo kale dhinaca waxaa laga dhisayaa biyaanada ugu dheer ama bilinka ugu dheer, dahab tower ayaa loo bixiyey, bulshada ayaa dhisanaya maasha allah. waad aragtaan waa biyaanada ugu dheer bay noqonaysaa magaalada muqdisho. sidoo kale biyaanooyin badan iyo dhismooyin fara badan baa meesha ka socda. dad badan ayaan fahamsanayn waa maxay biyaano. biyaano anaa idin sharaxaya. biyaanadu waa dabaqyada saaxiib yaal dhammaantiinba muqdisho ayaan ku dalxiisanayaa, dhan walba muqdisho saasaan uga cararayaa. bilicda magaaladana dhan walba waan idinka tusaya insha allah. muqdisho sidee bay ahayd, sidee bay hadda ku socotaa ayaa isweydiin leh. waxay ku socotaa sida aad aragtaan ay quruxda ku dheehan tahay maasha allah tabaaraka allah. allaha barakeeyo, nabadana allaha ugu sigo insha allah. dhammaan bulshooyinka reer muqdisho waxaan leeyahay subscribe, like, share kana mid waa saacada ku xidhan Mawel channel. maanta waxaan ku suganahay Xadiid Industries. waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ah meelo badan horta waan maray, laakiin weli maan arag building dad oo bir laga sameeyey. building aad aragtaan dhammaantiisba bir buu ka samaysan yahay. bal ina mariyaa naftiisa hadaba. saaxiib asaarkiisaan ba weli waxaan ku dul soconayaa birihii. saaxiib asaarkiisaan ba waxaa si fiican igu soo dhaweeyey waxaan ku buildingkan ama dhismahan Xadiid. walaalkii Axmed Ismaaciil allah yibaarik fiik. maasha allah Xadiid Industries Group kusoo dhawow magaalada muqdisho. wax kasta oo bir ka samaysan xadiid ayaa idin sahlaysa insha allah, oo dhismo ah dhan kastaba ah. awal kusoo dhawow waa faynus ifaya, waa faynus kobciyaha ganacsiga maasha allah maasha allah. marka si kale loo dhigo waa kobciyaha ganacsiga. waa tabaguuradii shirkadda tabaguur jirsatay runtii oo dabcan waxyaabo badan muqdisho bilicdeeda ka qayb qaadatay. dhismayaal casriga soo kordhisay oo waddanka ku cusub oo sida structure-ka ah haddii noqoto kafee hawsada magaalada ugu aasaasan oo nolosha ugu waaweyn magaalada sida Ria Palace, Silver, nolosha dhammaan kafee hawsyada oo dhammaan shirkadu ay ka qayb qaadatay dhismaheeda. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa maasha allah. xaggani waa xafiiskii CEO fadhiyey saarkiisa Axmed waa kan kursigiisii nooga soo kaco halkaas noo soo fadhiistay maasha allah. istiqaadka qurux badan noo sameeyey weli baan arag. saaxiibkii kaa geysan baan leenahay, kaa geysan.